السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada kobciya software kooraskan cusba ee noo socday ee quickbook ku saabsanaa waxaan marinay casharkeenii afaraad ee practicalka ahaa. casharo fara badan oo theory aan soo qaadanay. casharkeenii afaraad ee practicalka ahaa. casharkeen wuxuu ka hadlayaa how to record the fixed asset. fixed asset waa garanaysaa waa hantida maguurtada ah sida uu businessku leeyahay, sida dhulka oo kale, gawaarida uu leeyahay iyo equipment waxyaalo qalabkan uu isticmaalayo. waa hantida maguurtada ah oo uma talagelin inuu iibiyo, laakiin wuxuu ugu talagalay si uu ugu shaqeysto. dhulkan uu leeyahay wuxuu rabaa inuu ku shaqeysto, building ama dhismahan uu leeyahay wuxuu rabaa inuu ku shaqeysto, ma rabo inuu iibiyo. marka waa alaabta loogu talagalay hal sano wax ka badan in lagu shaqeysto. marka fixed asset baa loo yaqaanaa. sidii loo diiwaangelin lahaa baan ugu tusayaa sida practicalka ahaa. marka waxaan u noqonaynaa quickbook programkeena quickbook aan soo furaynaa. ila socda shaashada igala socda asxaabayaal. markaan soo furaynaa shaashadeeni quickbook taana soo baxday. marka ugu horeysa steps ka qaadaysa marka fixed asset diiwaangelinaysid. marka fixed asset ku yaalo waxaad tagaysaa kow company baa tagay, dan waxaad tagaysaa make journal entries ku dhufo. shaashadeeni yareed baa noo soo baxaysa, iska suganaa waan iska weynaysiinaa maximize baan dhahnaa. hadda waxaan dhiganaa debit iyo credit baa kala dhiganaa maadaama uu asset yahay. fixed assetku debitku ka kordhaa, marka waxaan dhiganaa debitka. waxaan ku qoranaynaa waxaan ka dhiganaaba dhul aan leenahay baa diiwaangelinaa laambadhe laankaasaan dhahnaa. meesha banaan ama tab baa taabanaya, tab iska taabo. wuxuu soo qaaba tab markaan taabto land is not in the account list buu leeyahay iba diiwaangashaa set up anaa diiwaangashanaya. laanku maadaama uu yahay fixed asset, halka fixed asset baan dooranaya, then continue baan dhahayaa. halka uu diiwaangashan yahay then save and close baan dhahayaa. halkaas tan uu diiwaangashan yahay qiimaha lacagta uu baan sheegayaa. wuxuu igu diiwaangashan yahay $7,000 oo kale. waa diiwaangashaa deer. creditkayga waxaan dhiganayaa opening balance equity. waa hanti la sheegin ninkii lahaa, ama waxaa sheeganayaa ninkii lahaaba laanka dhulka baan sheegayaa. hadda jaamac cismaan oo kale baa dhulkaale jaamac cismaan wuxuu noqonayaa equity maadaama hantida leeyahay isagu. equity wuu noqonayaa. continue waa tahay then save and close baa taabaysaa. saasaad ku diiwaangashay. waxaad qoratay dhulkii, waxaad qoratay ninkii lahaa. ninka businesska le waa ninkan, ama ninka businesska magaciisa ku qoraysa maadaama businessku leeyahay. halka dadusoo ka bedeysaa cidda le umad ku qoraysa. halka steps si umad raacaysaa. save and close baa dhahaysaa. tan aan soo save and close message-kan uu iska soo baxay. tan okay waan iska dhahayaa. hadda saasuu igu diiwaangasmay. reportkayga aan tago financial report, then wanaan ka dhex helaa fixed asset, wanaan ka helaa meesha. ma aragta halka fixed asset land dhul baa halkaas soo gashay. then equity uu leeyahay jaamac cismaan oo kale baa le equity-ga. markaasaan ugu diiwaangashanaysaa fixed asset-ka. casharkiina halkaas nagu soo gabagabooday. marka asxaab waxaan leeyahay casharadii hore iyo casharkanba waa cashar wada xiriir leh, casharada wada muraajaceysta. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.